kusoo dhowaada qaybtii toddobaad ee barnaamijka taxanaha noo ahaa ee taariikhda dhulxibeedka Soomaalida. Kadib markii Boortaqiisku ay ku jabeen dagaalkii ka dhanka ahaa boqortooyadii Soomaaliyeed ee Ajuuraan ee lagu beegsaday magaalada Baraawe, xaaladdu aad ayay isu beddeshay oo waxaa dhashay xasrado hareeyay geyiga dhaca badweynta Indiya, gaar ahaan xeebaha Geeska Afrika. Soomaalidu waxay lahaayeen ciidamo u diyaarsan ilaalada xeebaha si ay u ogaadaan khatar kasta oo kaga iman kartay dhanka maraakiibta gooyshaysay badaha. Ay dhici jirtay in mararka qaarkood si lama filaana qaar ayaga ka mid ah ay ugu soo xadgudbaan dhulxibeedka Soomaaliyeed ay maamulaysay boqortooyada Ajuuraan. Taawarada xeebuhuna waxay isticmaali jireen teleskoobyada gacanta fog oo si fudud u soo qabanaya xogaha maraakiibta nooc walba leh ee u soo dhowaada xeebahooda ama u soo jirsada mayl. Ereyga Banaadir micnihiisu waa xeeb af Soomaali ahaan, iyadoo loola jeedo hodantinimada xeebaha koonfurta Soomaaliya. Haddaba Banaadir waa beegsiga labaad ay ku jiraan Boortaqiiska kadib jabkoodii Baraawe. Kadib weerarkii Baraawe ee gumaystihii Boortaqiisku ka dhaxleen guuldarrada, waxaa xigay saadaasha ahayd in 10 sano ee soo socda xiisadda Soomaaliya iyo Boortaqiiska ay sii ahaan doonto mid aad u sarreysa oo aan xasilin ilaa labada dhinac midkood uu ka xaqiijiyo yoolkiisa. Waxaana goorta la sii cabirayay inuu sii kordhi doono xiriirka ka dhexeeya badmaaxinta Soomaaliyeed iyo saraakiishii Cusmaaniyiinta Turkida oo qudhooda walaac ka muujinaya qorshaha Boortaqiisku uu ugu soo diray ciidankiisa inay fuliyaan weerar qorshaysnaa oo ahaa duulaan ciqaaba oo ka dhana Muqdisho. Colkaas oo loo soo wakiishay George Zobalbeda oo ahaa taliyo sare oo awood leh oo uu boqorkiisa Boortaqiiska amray inuu isagu hogaamiyo weerar qorshaysnaa oo lagu burburinayo magaalada Muqdisho. Muqdisho waxay xilligaa ahayd magaalada ugu qanisan qaaradda Afrika, waxayna ka mid ahayd magaalooyinka ugu caansan ee ku yaala xeebaha badweynta Indiya. Haddaba Muqdishadii lahayd quruxda iyo qiimahaas weyn ee George Zobalbeda oo fulinaya amarkii boqorkiisa uga yimi, waxa uu ka dhigay meel uu burburiyey si aanay Soomaalida u yeelan wax rajo deegaan ah kol dambe oo ay magaalada ugu sii nagaadaan. Wuxuu dhaawacyo daran u geystay mashruucyadii horumarinta xeebaha ee ka socday gudaha magaalada. Isagoo markiiba u sii hayaamay darafyada xiga waqooyiga magaalada, waxa uu gaaray goob caan ah oo lagu xidho maraakiibta ganacsiga ee ka yimaada dhanka badda cas. Wuxuu halkaasi ka sahminayay wax dhaqdhaqaaq ah oo ka iman kara dhinacyada Turkida. Sidaa awgeed wuxuu joogistiisii halkaa ku ogaaday in Turkidu sanadka aanay u soo dhoofi doonin bariga Afrika oo dhan ee ay Soomaaliya ka mid tahay. Kadib markii uu xaqiiqsaday arrinkaas, waxa uu ku soo laabtay Xamar isagoo markaan raadinaya wadahadal uu la galo madaxdii Muqdisho ee xilligaa joogtay, wadahadalkaas oo qasban ahaa. Si kastaba ha ahaatee, George Zobalbeda iyo 30 raxan ee uu watay oo ahaa 30 kooxood oo waaweyn ayaa ciidamada ilaalada xeebaha ee Ajuuraan ay ogaadeen qorshahooda iyo dhaqdhaqaaqooda. Isla markiiba waxaa lagu wargeliyey taliyaha ciidamada badda ee boqortooyadii Ajuuraan oo la oran jiray Axmed Dheere in magaalada ay ku soo wajahan yihiin maraakiib dagaal oo ay wataan ciidamo badan oo Boortaqiis ah. Wuxuuna taliyaha u diray maraakiibta in ay weerarkaasi ka hortagaan ciidamo badan oo ka tirsanaa ciidankii ilaalada xeebaha ay lahayd boqortooyadii Ajuuraan. Hadafka ayaa ahaa in la fashiliyo weerarka qorshaysan ee Boortaqiiska ka hor inta uusan soo gaarin xeebaha dhow ee Banaadir. Taliya Axmed Dheere iyo ciidankiisii waxay ku guuleysteen inay burburiyaan 24 markab iyo ciidankii saarnaa, kuwaas oo ka mid ahaa 30kii markab dagaal ee soo duulay wateenna ciidamadii Boortaqiiska ee ku soo wajahnaa xeebaha Banaadir. Ciidankii boqortooyada Ajuuraan waxay halkaasi ku soo afjareen nolosha sargaalkii George Zobalbeda ee hogaaminayay ciidankii Boortaqiiska oo isla goobta isna lagu dilay. Si kastaba ha ahaatee, 6 raxan ee ka soo hartay askartii Boortaqiiska waxa ay ku guuleysteen in ay dagaalka soo dhex maraan, si toos ahna u abbaaraan magaaladii Xamar. balse nasiib wanaag 60 markab ee baxsadka ahaa waxaa durba ka warhelay ilaalada tawarada Muqdisho iyo ciidankii boqortooyada Ajuuraan ee xilligaas ku howlgalayay hub casri ah oo ay soo iibsadeen sida madaafiic dheereeya oo wadar ku baabi'in karay gaadiid badeedka isgarab yaalla.
waxaana ilaalada xeebaha muqdisho halkaa dambas ay uga dhigeen dhammaan 6dii markab dagaal iyo ciidankii Boortaqiiska ee ka soo dusay furimaha dagaal. saraakiisha Boortaqiiska waxa ay seegeen talo dhowr jeer oo ay Soomaalidu u soo jeedisay in la nabadgeliyo dhulkooda xeebaha, laakiin dalabkaas nabadeed waxaa iskala weynaaday madaxdii horkacaysay ciidankii badnaa ee Boortaqiiska, kuwaasoo u arkayay in wax kasta ay ku meelmarin karaan awooddooda markaa ula muuqatay inay ku maquunin karaan dadka Soomaalida. qorayaasha iyo taariikhyahanadii ka faallooday dagaalkan waxay badi ka sinaayeen in Boortaqiiska uu eeday aqoon la'aan ka haysay dadka la yidhaahdo Soomaalida, waxayna ku sifeeyeen in Boortaqiisku sahashaday inuu dagaal bareera ku sahmiyo Soomaalida, weliba iyagoo u diyaar ahaa in nabad lagu kala joogo. ha yeeshee dhaxalka dagaalkaas ee uu gumaystihii Boortaqiiska ka helay fagaaraha dagaal ee xeebahii gobolka Banaadir ayaa noqotay mid baal muruga badan ku soo biirisay bogogga taariikhdooda gumaysiga ee isku dagii qaaradda Afrika. sida taariikhyahanadu sheegeen, Soomaalida gaar ahaan boqortooyadii Ajuuraan waxay ka hor dagaalkaasi u sheegtay saraakiishii ciidanka horkacaysay in ay si nabada ku dhaafaan xeebaha Muqdisho, waxayna ka dhaga furaysteen codsiga oo waxay Boortaqiisku iska dhaadhiciyeen inay dadkan madow ee ku nool dhulkan hodanka ee xiga geeska la adoonsan karo si la mid ah Afrikada ay soo mareen. laakiin sida taariikhdu sheegayso, 3 meelood ciidankii Boortaqiiska ee xamar soo weeraray way dhinteen, meelna nolosha ayaa lagu qabtay kadibna lagu adoonsaday qudhoodii gudaha Soomaaliya. waana sida ay bugaagta taariikhda dalka Boortaqiiska xitaa ku xusaan ilaa iyo haatan. la soco inaan ka sheekaynayo sida hanka lahayd ee loo difaacay dhulkan iyo badihiisa ee maanta lagu bixinayo sida sooryo ama hadiyad shakhsi uu leeyahay. waa dhaxal ay awowyaal u soo mareen marxalad walba si ay nagu siimaan annaga, kadibna aan u dhaxalsiino jiilbakan xiga. la soco qaybta 8aad ee taxanaha taariikhda dhulxebeedka Soomaalida.